kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada janaalkina wararka 24 akhbaaraadka Weynaa daawan doontaan waxa kamid ah booliiska Soomaaliya oo muqsho ka qabtay dad caruurta ka xada jiray kaba ku tukada oo shaaciyay ilmo dhalay ka dagaalamaan gudaha dalka Kenya madaxweynaha Kenya oo shuruud adag ku xiray in ciidamadiisa uu kala baxo gudaha Soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ka shafay qorshe ay dawladdu ku sameynayso muddo Qaraxii tirada askarta amisom ee lagu dilay gudaha Soomaaliya oo la soo saaray iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida uu xukun adag ku riday rag qaraxyo ka fulan jiray magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan soo dhawaada saaxiibayaal marka hore daawadaha mugan inaad subscribe dhahto channelkan oo aad furto gambalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya waa hagaag daawadayaal aan ku bilawnay 11 qof oo caruurta ka xidhay jiray magaalada Muqdisho ayaa booliiska Soomaaliya waxay ka qabteen gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in ciidamada booliiska ay soo qabteen shabakad ku howlaneed ka ganacsiga caruurta taas oo in muddo ka howlgali jirtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho booliisku waxa ay sheegeen in raggan in muddo lagu raad joogay taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen Axmed ayaa barteeda Facebook ku soo daabacday warbixin la xiriirta howlgal ay ciidamada ammaanku ka sameeyeen magaalada caasimadda ee Muqdisho taas oo lagu soo qabtay kooxdan isla markaana su'aalo lagu weydiinayo shaqadii ay hayeen sidoo kale taliye Sakiye ayaa waxa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in ciidamadu ay soo badbaadiyeen 11 caruur ah oo ay shabakadu doonaysay in ay iibsadaan sida ay hadalka u dhigtay hase yeeshee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa haatan caruurtaasi la sugaya waalidiintooda si loogu wareejiyo qoraal kooban ay ku soo daabacday baraha bulshada ayay ku xaqiijisay in shabakadan lagu daba jiray muddo bil ah isla markaana haatan lagu guuleysay in gacanta lagu dhigo waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 ha mugan daawadana subscribe dhahto channelkeena aad furto gambalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya markaana haddii aan eegno kaba ku tukada ayaa shaaca ka qaaday in ilmo dhalay ay ka dagaalamaan gudaha dalka Kenya gudoomiyaha al-shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe Yuusuf Ciise kaba ku tukaday oo odayaal isku dhibay al-shabaab kula hadlayay magaalada Xaradheere ayaa sheegay in al-shabaab ay tahay koox gobanimo doon ah sida uu hadalka u dhigay Yuusuf kaba ku tukaday oo khudbad dheer u jeedinay odayaashan cafiska u doontay al-shabaab ayaa uga sheekeeyay taariikhda dagaalka al-shabaab ee ka dhanka ah ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa midowga Afrika ee AMISOM wuxuu odayaasha u sheegay in ciidamada al-shabaab ay leeyihiin awood ay isaga difaaci karaan ciidan kasta oo la keeno gudaha Soomaaliya sida uu sheegay kaba ku tukaday ayaa sheegay in cunug uu dhalay uu ka dagaalamo gudaha dalkaasi Kenya isla markaana uu ka tirsan yahay al-shabaab wuxuu xusay inaan loo baahnayn ciidan balse ay ku filan yihiin caruurta ay dhaleen ragga ka tirsan al-shabaab sida uu hadalka u dhigay wuxuu xusay in mid kasta oo ka tirsan al-shabaab uu qabo afar xaas isla markaana ay u dhalaan galab iyo subax sida doorada oo kale sida uu sheegay Yuusuf kaba ku tukaday ugu dambeyntii waxa uu sheegay inaysan wax dhib ah u arkin waxyaabaha la sheego sida wahaabiyada oo kale isaga oo sheegay in qof kasta oo muslim ah laga sheego waxyaabo aan u qalmin sida uu sheegay Yuusuf kaba ku tukaday waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 ha mugan daawadana subscribe dhahto channelkeena aad furto gambalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya daawada waad ka soo aragtay dhiibi kartaa qodobada aad wararkeena ku daawato markana haddii aan eegno madaxweynaha dalka Kenya ayaa shuruud adag ku xiray ka bixitaanka ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hor imaaday qorshaha la doonayo in ciidamada AMISOM laga saaro gudaha dalka Soomaaliya madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya aysan marnaba ka bixi doonin gudaha Soomaaliya inta ay al-shabaab jiraan sida uu sheegay isaga oo xuseen al-shabaab ay halis weyn ku tahay guud ahaan ammaanka dalalka Afrika wuxuu tilmaamay in ciidamada Kenya ay baaqi ku sii ahaan doonaan gudaha Soomaaliya inta ay iska dhiibayaan al-shabaab sida uu hadalka u dhigay Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayna ku shaqeeyaan amarka iyo qorshaha u degsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo ujeedkiisu yahay sidii al-shabaab loo ciribtiri lahaa dawladda Kenya ayaa dhawaan qaramada midoobay u gudbisay qaraar ka dhan ah al-shabaab kaas oo ahaa qodobka 1267 oo sheegaya in meelaha ay al-shabaab ku sugan yihiin laga fuliyo duqeymo aan kala sooc lahayn iyo in aan wax gargaar ah la gaarsiin karin deegaanada ay maamulaan al-shabaab qaramada midoobay ayaa qaraarkaas ka hor timid waxayna sheegtay inaan la joogin waqti al-shabaab la galiyo qodobka 1267 waxaana arrintaasi si weyn uga hor yimid hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay dawladda Soomaaliya ayaa horay dawladda Kenya ugu eedeysay inay qayb ka tahay dhaqaalaha ay helaan al-shabaab waxayna codsatay in intii la ansixin lahaa qodobka 1267 lagu amro dawladda Kenya inay joojiso dhoofinta dhuxusha oo la aaminsan yahay inay al-shabaab dhaqaale far badan ka helaan hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku soo aadaya xilli meel xasaasi ah ay marayso dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya taas oo dib loo dhigay muddo 2 bilood ah waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 ha mugan daawadana aad ku xirnaato channelkeena oo subscribe dhahto si aad u hesho xogaha ugu dambeeyay oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya sidoo kalena aad share gareyso muuqaalkan waa hagaag markana haddii aan eegno xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka shafay qorshe ay dawladdu ku doonayso muddo Qaraxii
madaxda ugu sareysa dalka ayaa lagu eedeeyaa inay wadaan qorshe culus oo ay muddo kororsi ku sameysanayaan. Maxamed Xasan Idris oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro guux ku aadan in baarlamaanka Soomaaliya qorsheynayo in la sameeyo waqti 2 ilaa 3 sano oo muddo kororsi ah. sidoo kale wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo isna la doonayo in waqtiga loo kordhiyo iyadoo aan waliba la shaacin. xildhibaanka ayaa tilmaamay in qorshahan uu wado guddiga ku meel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ayna diyaariyeen dhowr ajenda oo ay mamarsiyo kaga dhiganayaan si loo sameeyo waqti kororsi 2 ilaa 3 sano ah. xildhibaanka ayaa sheegay in sababta loo cuskan doono muddo kororsigan ay tahay in duruufo amni ay jirto taas oo aanan suuragal ka dhigi karin doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan, taasina ay noqonayso meel ka dhac loo geystay shacabka Soomaaliyeed isla markaana aysan fuyin sababihii loo doortay sida uu hadalka u dhigay. madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu sheegay inay wadaan qorshahaas muddo kororsiga ah, waxa uu ka digay in dalka Soomaaliya oo xilligan uu galo dagaal la sokeeyay sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa goor hore sheegay in uusan waqti kororsi sameyn doonin isla markaasna uu doorashada qaban doono waqtigii loogu talagalay. lama oga sida ay suuragal ku noqon karto dowladda Soomaaliya waqti kororsiga ay doonayso maadaama taas hore looga diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 ha mugaan daawadana subscribe dhahto channelkeena oo aad furto gambalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. daawada waad ka soo aragtay dhiibi kartaa qodobada aad wararkeena ku daawato adiga oo waliba muuqaalkan sii share gareyn kara. markaana haddii aan eegno tirada askarta AMISOM ee lagu dilay gudaha Soomaaliya ayaa la soo saaray. warbixin cusub oo uu soo saaray qabiir u dhashay dalka Mareykanka kuna takhasusay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa lagu muujiyay in 1800 oo askari oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM lagu dilay dagaalada ka dhanka ah al-shabaab tan iyo 2007. Professor Paul Williams oo baaritaankiisa saldhig uga dhigay ilaa 5 arrimood oo ay ugu horeyso dukumentiga lacagaha magdhowga ah ee la siiyo qoysaskii ay ka dhinteen askarta ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee jooga gudaha Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007. Professor Paul Williams oo arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda George Washington University ee dalka Mareykanka waxa uu tirakoobkan khasaaraha soo gaaray askarta AMISOM muddadii u dhaxaysay bishii Maaj ee sanadii 2007 ilaa iyo bisha December ee sanadkii hore ee 2018. waxa uu sheegay inay u dhaxayso 1483 askari ilaa iyo 1884 askari kuwaas oo lagu dilay gudaha Soomaaliya. waxa uu sidoo kale sheegay in tiradu intaas ay ka badan karto, wuxuuna soo xiganayaa liiska magacyada iyo darajada ciidamada AMISOM ee lagu dhijiyay darbiga midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ee xarunta u ah midowga Afrika, kuwaas oo lagu dilay howlgalka midowga Afrika ee wadamada Burundi, Afrikada Dhexe, South Sudan iyo waliba Soomaaliya. wuxuu sheegay inaan si rasmi ah loo ogaan karin tirada ciidamada AMISOM ee lagu dilay gudaha Soomaaliya maadaama aysan ilaa iyo hadda dowladaha ay ciidamada ka joogaan gudaha Soomaaliya aysan soo bandhigin tirada rasmiga ah ee ciidamada looga dilay gudaha Soomaaliya. Professor Williams ayaa sheegay in bishii Agost ee sanadan 2019 in darbiga xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa lagu qoray magacyada ilaa iyo 1108 askari kuwaas oo lagu dilay gudaha Soomaaliya. warbixinadii maaliyadeed ee midowga Afrika laga helay intii u dhaxaysay 2014 ilaa iyo 2018 waxay muujinayaan in midowga Afrika ay bixiyeen lacag gaaraysa 74.6 milyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo magdhow ahaan loo siiyay qoysaskii ay ka dhinteen askarta midowga Afrika ee lagu dilay gudaha Soomaaliya kuwaas oo ku geeriyooday dagaalada ka dhanka ah al-shabaab. Professor Williams ayaa warbixintan ku soo bandhigay macadka caalamiga ah ee nabadda ee New York, wuxuuna AMISOM ku eedeeyay inaysan warbaahinta la wadaagin khasaaraha soo gaaray ciidamadooda, taasina ay fursad weyn siisay al-shabaab oo soo gudbiya tiro aan la hubin. waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan channelkeena wararka 24 ha mugaan daawadana subscribe dhahto channelkeena aad furto gambalka sidoo kalena asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markaana haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun adag ku riday rag qaraxyo ka fulin jiray magaalada Muqdisho sida ay sheegtay. maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqday go'aanka dacwad ciqaabeedka loo haystay xubno lagu soo eedeeyay inay al-shabaab ka tirsan yihiin isla markaana ay qaraxyo ka fulin jireen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. maxkamadda ayaa sheegtay in eedeysana Xasan Cali Macalin Barre uu al-shabaab u qaabilsanaa dhagista gawaarida qaraxyada sida goobaha ay shacabku ku badan yihiin ee magaalada Muqdisho. waxayna sheegtay maxkamaddu in 26 bishii 11aad ee 2018 uu suuqa kaawa goday ee degmada Wadajir dhigay gaari nuuciisu ahaa Filler, kaas oo qaraxii uu sameeyay ay ku geeriyoodeen 12 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 7 kale. Sid Cali Aadan Nuur oo loo yaqaano Steen Boy oo isna al-shabaab u qaabilsanaa soo gelinta magaalada Muqdisho gawaarida sida walxaha qarxa iyo farsamooyinka kale ayaa isna maxkamaddu ay xukuntay, halka Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif oo isna loo yaqaan CJ
isagana lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyo inuu hay'adaha baarista u sheegay magac been abuur ah. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyntii waxa ay ku xukuntay xasan cali macalin barre oo loo yaqaano xasan boy dil toogasho ah, iyadoo sayid cali aadan nuur oo loo yaqaano steen boy ku xukuntay xabsi daa'im, halka muxudiin maxamed axmed khaliif oo loo yaqaano CJ ay ku amartay in la sii daayo. waxayna maxkamaddu sheegtay in ciddii aan ku qanacsanayn xukunkan ay u furan tahay inay racfaan ka qaadato. waa hagaag daawadayaal guud ahaan waxaan inta kusoo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya. ha mogaanin daawada inaad subscribe dhahto channelkan oo aad furto gambalka, sidoo kalena asxaabta ay la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya.